gaariga ugu horreeyay abid waxaa la sameeyay 136 sano ka hor. taariikhda baabuurtu waa mid xiiso gooni ah leh sababtoo ah waxaa jira kacdan xoogan taasoo qayb muhiim ah ka ah kor u kaca tiknoolajiyadda. اختراعيال badan ayaa la yimid habab iyo naqshado u gaar ah intii lagu guda jiray qarnigii 18aad iyo 19aad. si kastaba ha ahaatee, falanqeeyaasha caalamka ayaa u aqoonsaday naqshada gaariga Carl Benz ee sanadkii 1885 uu ahaa gaariga ugu horreeyay ee abid la sameeyo. waa macquul marka aad akhrinaysid buugaagta wax ka qorto ikhtiraaciyada baabuurta inaad aragtid inay siinayaan baabuur kale, laakiin taasi waa laga xoog badan yahay. sanadkii 1885 Carl Benz wuxuu ikhtiraacay baabuur loo aqoonsaday inuu yahay baabuurka ugu horreeyay ee adduunka ee shidaal ku shaqeeya. qaab dhismeedka dhammaystiran ee baabuurka waxaa loo abuuray si waafaqsan cabirada mishiinada ku jira gudaha. baabuurka Benz ayaa noqday jiheeye baabuurtii la sameeyay gadaashiisa. naqshada baabuurtu waxay ku salaysneed tan gaariga dameerka oo kale. farqiga u dhaxeeya ayaa ahaa in halkii dameerka uu ku jiray laga dhigay matoor. baabuurku wuxuu ka koobnaa 3 taayir wuxuuna socday isagoo aan u baahnayn awood dheeraada oo kaxaysa. shaagaga dambe ee baabuurka ayaa ka weynaa kana cuslaa garaangirta hore. tanina waxay ka caawisay gaariga inuu si fiican ugu kaxeeyo dhulalkaan sinnayn. mishiinka gaariga ayaa miisaankiisu ahaa 220 pound. inkastoo uu miisaankiisu yar yahay, haddana waxay ka mid ahayd matooradii ugu waxtarka badnaa qarnigii 19aad. beri alwaax ayaa loo isticmaalay in lagu dhiso qaab dhismeedka baabuurka iyo dhinacyadiisa. steerinka ayaa u adeegayay inuu leexiyo oo xakameeyo dhaqdhaqaaqa garaangirta hore. soo bandhigitaankii ugu horreeyay ayuu shil galay baabuurkani. Benz oo aan niyad jabin fashilkii halkaasi ka dhacay ayaa sii waday tijaabadiisii ballaarneyd, wuxuuna soo bandhigay wax ka bedel ballaaran. natiijo ahaan isla markiiba wuxuu awooday inuu helo gaadhigiisii oo ka waxtar badan sidii hore si uu ugu safro in ka badan 62 mayl asaga iyo qoyskiisa oo kala ahaa 2 wiil iyo xaas. intaas kadib gaarigii wuxuu gaaray heerar kala duwan ilaa uu ka noqday mid caan ah. sidaa daraaddeed Benz waxa uu sii waday wax soo saarkii ganacsiga ee baabuurta, wuxuuna ku iibinayay qiimo aad u sarreeya, wuxuuna kasbaday faa'iidooyin badan sababtoo ah waxaa loo qabay baahi aad u badan. sanadkii markuu ahaa 1886 Benz wuxuu bilaabay hanaankii uu ku heli lahaa injiin baabuur oo ka horumarsan midka hadda uu haysto. lambarkiisa shatiga ayaa ahaa 3743. waxaa lagu yeeri karaa mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee baabuur yeesho.